waxaa garoonka diyaaradaha ee Gradwell Wal si heersare ah loogu soo dhaweeyay mudane Khadar Maxamed Colaad oo kamid ah qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana ka yimid dalka Mareykanka. Faafahinta warkan waxaa inoo eegay wariye Maxamed Axmed Cumar. kadib markii ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya qaadatay siyaasado furfuran isla markaasna ay dadaal xooggan u gashay sidii qurba joogta deegaanka loogu soo xiri lahaa deegaankooda ayaa waxa si aan kala go'ol ahayn gudaha deegaanka ugu soo qulqulayay muddooyinkii ugu dambeysay qurba joogta deegaanka u dhalatay ee ka imaanaysa daafaha caalamka. haddaba waxaa gagida diyaaradaha ee Gradwell Wal Airport ee magaalada Jigjiga si heer sare ah loogu soo dhaweeyay mudane Khadar Maxamed Colaad oo ah qurba joogta deegaanka oo muddooyinkii u dambeysay ku sugnaa dalkaasi Mareykanka isla markaasna ah gudoomiyaha hay'adda xoojinta dhalinyarada iyo ardayda laanteeda waqooyiga Ameerika oo ah hay'ad ku hawlan hawlaha wacyigelinta dhalinyarada isla markaasna xafiisyo kala duwan ku kala leh daafaha caalamka iyo dalka gudihiisaba. waxaana soo dhaweyntiisii ka soo qayb galay fanaaniinta deegaanka oo ay kamid ahaayeen Axmed Daahir Xaaji Maxamed Dalmar Nuur Caraale iyo Cali Dhaanto iyo qaar kamid ah xubnaha hay'adda laanteeda magaalada Jigjiga. haddaba intaasi kadib mudane Khadar Maxamed Colaad oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyay dareenkiisa farxadeed isla markaasna qurba joogta kale ee deegaanka ka maqan ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashiga ee deegaanka. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii soo dhaweysay mas'uuliyiinta iyo maaragtay fanaaniintii dawladda deegaanka Soomaalida oo qofna ka maqnayn sidoo kale shacabweynaha reer Jigjiga dhamaantood iyo ururka dhalinyarada DYC oo hawshan soo qaban qaabiyay qurba joogta aanu ka wada nimid Mareykanka iyaguna wadanka sii joogay aad baan runtii maanta u faraxsanahay shucuurteedan ma soo koobi karo. runtii waxaan ku oran lahaa inay wadankooda ay ku soo noqdaan soo maalgashadaan kana faa'iideystaan fursadaha maalgashi. isku soo wada duuba ujeedada imaatinka qurba joogan ayaa waxay tahay shirweyne ay hay'adda xoojinta dhalinyarada iyo ardaydu ay 23 December ee sanadan aynu ku jirnaa ay ku yeelanayso magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaaliya.